السلام عليكم أصحابتي قروح بدني dhamaantu waa in salaamku maalin kasta igu soo bir aad baa u mahadsantiin asxaabteeda hore ila joogteen aad baa u mahadsantiin soo dhawaada aniga ka dabaganay cuntadan shaki la'aan adigu ha ilaawin subscribe sidoo kale maalin hadday ku tahay meel wanaagsan habeen hadday ku tahayna xulugu fideegun soo gaadhan wanaagsan maanta casharkan ka soo tuuranay waa iska ogtiin jimcayaasha ma aragteen in la iska jeceliyo waxaas kale bariis iyo hilib iyo Soomaalida caadadeeda iska tahayba soo maanta jimcaheed ma sha Allah inta ku soo qadeeni ma sha Allah dhakhtar yar oo dhintay ayaa wuxuu yiri maraqa iyo hilibka waa dawo yani maraqeena sida loo soo kariyo biyo cadna ku soo karisina bardo ku dartid dawo wey yani caanshad waxaa la dhihi jiray Soomaalida bariiska dadayaan cudur waa kees way hilibkooda cudur waa dhakhtar yar oo yiri sideen yani bariiska u soo karinayno iyo hilibkeena soo loo soo karinayo ayaa sax ah buu yiri hadoo dhakhtar yar maalin dhintay soo ma sha Allah hilibkeenu waa maaragtay dee fiican yahay meeshaas ka garanaysa uusan cudur ahayn wakaasa bariiskana qaabkana maanta u soo karsanana ki oo saliida lagu shiilay xooga gab akayra dhahana isaga saliidiisa saliidaas ku daar arkasaan oo leefiya blue bankan wax yarna kaga soo daro soo ma aragtay bariis isku dhigin waana ku soo dirtay hadduu iska ka dhigdo bariisku wax ka fool xun Ilaahay ma abuurin laakiin hadda blue bankan ku soo dirtid oo leefiyadana ku soo dirtid wuxuu iska ka dhigdhigayna maalih ma sha Allah ku soo laabanaya aan maanta waxaan jeclaystay calinkeena inaan sameeyo soo bariiska waxaan ka soo dhigay blue baan ka soo dhigay ani kala aan kula daray ma jirto waxa kale ka dul muuqdana waxa weeye sinjibiil shiidan yani udgoon baan ka rabay darteed bandhigada ugu shubay soo soo baxay bariiskeena qaybna waa cadaan qaybna waa blue aniga ayaa ka dhigtay waxa rabay balcaanka Soomaaliya inaan maanta dhadhamiyo waxaan ku ma sha Allah u soo baxay mana laga sheekeyn karo wixii cunayna way ka duceeyeen ma sha Allah soo bariiskana saan soo baxay arkasaan qurux badan leh ma laga sheekeyn karo soo hilibkiina waa kana aragtaan waa kana hilibkiina ka bacdina waxaan rabaa xawaashiyada ku soo darsado wallahi xawaashiyadaas ma ku dareeyay waxaan ku dareeyaa sinjibiil shiidan baan ku darayaa iyo waxaan ku darayaa kale toon baan ku darayaa bes kamsar iyo toon dhan baan u dhaweyn maanta yani toonta shiidan baan soo qaado waan ku daray it's enough qorfaha shiidan baan soo qaado waan ku daray it's enough soo wakana bardhadana waa ku daray bardhadana saas u soo bislaatay qaarna way ku jabtay qaarna waa taasba soo isaga dabkiisa iskaga jiiday inaga dib bay nagu muhiim jirin laakiin waxaan mood jiray inuu cudur yahay soo cudurba ma waa dawo hilibkeena iyo marqeena ma sha Allah tabaarakallah dhaxal baan u leenahay ka abi isir baa u leenahay hilib iyo cunno iyo marqiisa iyo sidan loo soo kariyo wuxuu risaan ha loo kariyo iyo la shiilin ka bacdina wuxuu markaas marqa asalka ay waa isaga yani marqan kale la sameeyay digaaga waxa lagu darayo wuxuu yiri waxa weeye cudur weeye laakiin sidan hadii loo soo sameeyo isaga laftigiisa yaa la shiilaya saan leh hadaa u soo sameeysid wuxuu yiri qofkaas jirkiisu ma kala dheeraanayo meel kale waaweyn ma yeelanayo ma sha Allah u yeelanayo soo marqiinaysan inuu soo baxay ma sha Allah hada u jeed wakaasa hadana jibsida yar baan ku dhaansana ma sha Allah soo wakaasa asxaabtiisa inuu soo baxay intaan soo shiidana kaas aniga matunda waaqana bashmeel ma dhaaf English aydan wallah yemeengadaas inuu isku soo shiidana abadan wax ka ugu macaan bay isku soo noqonayaan ma sha Allah biyo ku soo taxaram mashiinka inaan soo maray cambuusideeda marka hore inta la shiidin ayuu wuxuu eegyahay ma aragtay waxaan fadhisan laakiin waa kana isugu soo shiidin oo kaasa ma sha Allah wax qashin oo saas ma leh waa iska smooth amal oo kale soo dhan soo ma biso miirinba sidiisa sar ku soo shaqsan ugu soo shubay oo jeedid
sidaas ay ujeedada ugu soo shubay maasha allah. labadan kooba soo qaatay waa kusoo diyaariyey sharaabkeena saas soo bax quruxda badan leh. waxaan kuri meel kasta joogtaan jimco wanaagsan, jimco mubaarak. fiidiyowana sii dheereeya wakaas asxaabteeda dhamaantood in jecla idinkuna subscribe-ka jecelka ay jeceshiin subscribe-ka igu bedela. wakaasa roodhidana way ku jirtaa iyadoo maasha allah aada u faahfaahsan, laakiin ani waan degdegsanaa. kabacdina waa iskaga soo daray dabada, kaga soo daray dabada, waana ka helay been ku sheegay. aniga waa ku haystaa dhisaankan roodhida. mar hadaa rabtidna hilib baa dhexda ka gashan kartaa, hadaa rabtidna shaaheeda ku cuni kartaa. alaasiyada hore waxaad ka dhigan kartaa quraac, baa ka dhigan kartaa quraac yaroo fudud. waa soo kacee, waa xashee yar bayra jilcine, cabaar baa banaanka dhigaysaa sidana u aragtid. waa soo duuduube banaanka dhige. hadaa rabtidna hilib baa dhexda ka gashanaysaa, hadaa rabtidna sidiisa ku cunaysaa. shaah baa soo diyaarsanaysaa, subag baa soo diyaarsanaysaa ama macasar. waxaan kuurde mal laga shakeeyo roodhidan ila soo qaqabta bal ila tijaabiya. ani ma ila macaanaatay mise yaa asxaabi ma soo tijaabisa, ma soo tijaabiya. wallaahi bilaahi waxaan kuuri wax banaanka laga soo gato roodhi oo dhan waa ilaawaysaa. roodhidan markaa maaragtay baratid oo samaysatid maba u baahanaysatii banaanka laga soo gadanay wayna sirtaybe. inay banaanka dhigaysaa cabaar inay soo faxdaa la rabaa. haddaysan faxinin furumka ma gelin kartid. soo ma aragtid say soo noqotay. ani markaan waxba dhexda kagama gurin, saanay soo noqoto. waxaa rabaa inaan shaahiyo ku cuno maaragta dhexda waxba ku male asxaabi. anaa hadda justinaaw ina tusay. soo wakaasa saasay soo baxda quruxda badan leh maasha allah. ila soo tijaabiye waxaan la tijaabin lama taabto. shaahagaad ku cuni kartaa, malabkaagaad ku cuni kartaa, waxay diidaysa male.